بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxa ku sheekaysi doono Aisha iyo Ahmed waxa hadalka bilaabayo Aisha waxa hadalka bilaabay ay raahday Ahmed ay hadalka bilaabay wuxuu yiri Hello Aisha Hiya Aisha I did not see recently maalmahan kuma arkin having practice adigoo wada sheekaysi yeelanayo wada sheekaysi sameynayo kumaan arkin soo sidaas darteeda what is the matter with you maxaa kugu dhacay adiga haddii mar kale aan ku cirsho hello Aisha haye Aisha I did not see recently maalmahan kumaan arkin having practice adigoo yeelanayo wada sheekaysi sameynayo soo sidaas darteeda what is the matter with you maxaa kugu dhacay adiga markaas bay tiri Aisha what do I benefit from having practice what do I benefit from having practice waa maxay faa'iidada aan ka helayo haddii aan wada sheekaysi yeesho aan sameeyo what do I benefit waa maxay faa'iidada aan ka helayo from having practice haddii aan wada sheekaysi aan sameeyo markaas buu Ahmed u yiri it makes you waxay ka dhigaysaa adiga haddii aad wada sheekaysigu aad samayso a person qof ayay ka dhigaysaa speaking English ingiriisiga ugu hadla as a British people sida dadka dhaladka oo kale it makes you waxay ka dhigaysaa a person qof speaking English ingiriisiga ugu hadla as a British people sida dadka dhaladka oo kale markaas bay tiri have you any evidence wax cadeen ma haysataa that it makes me inay anigu iga dhigayso a person qof speaking u hadla like a British people sida dadka dhaladka oo kale markaas ayuu yiri Ahmed yes ha waan hayaa I have a wisdom waxaan hayaa xikmad ayaan hayaa I have waxaan hayaa a wisdom xikmad which says taas oo dhahaysa more practice wada sheekaysi badan makes you wuxuu ka dhigaa perfect mid khatar ah ayuu ka dhigayaa more practice wada sheekaysi badan makes you wuxuu ka dhigaa perfect mid khatar ah markaas ayay dhahday Aisha if I come haddii anigu aan imaado to the schoolka aan u imaado every day maalin waliba haddii aanan googooyin and take my lesson aana qaata casharkayga do I need practice wada sheekaysi maa laga rabaa markaas Ahmed ayuu yiri carrying heavy books buugaag culays badan oo la qaado carrying heavy books buugaag culays badan oo la qaado in front and back hor iyo gadaal loo wato is not knowledge aqoon maaha carrying heavy books in front and back is not knowledge buugaag culays badan hor iyo gadaal loo wato aqoon maahan markaas ayay dhahday well hagaag Ahmedo what do you recommend me maxaad igula talinaysaa what do you recommend me maxaad igula talinaysaa markaas ayuu Ahmed yiri I may recommend it you waxaan kula talinayaa to take inaad qaadato constant practice wada sheekaysi joogta aad u qaadato because maxaa yeelay 10 minutes 10 daqiiqo
of practice ee wada sheekaysi la sameeyo is better than waxay ka wanaagsan tahay 10 daqiiqo 10 years 10 sano of learning ee la barto Ingiriisiga 10 minutes to make practice 10 minutes of practice is better than 10 years to learn it. What do you urge me? maxaad igula boorinaysaa? What do you urge me? maxaad igu boorinaysaa? And what do you urge? maxaad ku boorinaysaa? For those kuwa what do you urge? maxaad ku boorinaysaa? ama maxaad ku boorin doontaa? For those kuwa kuwaasoo play through one from the schoolka u googooya kuwa schoolka u googooya maxaad ku boorin doontaa? And not having aanan yeelanin practice wada sheekaysi kuwa aanan samaynin maxaad ku boorin doontaa? markaas bay tiri markaas Axmed baa dhahay I may urge waxaan ku boorin lahaa dem dhammaantooda kuwa iskuulka googoonayo iyo kuwa aanan yeelanin wada sheekaysi aanan samaynin waxaan ku boorinayaa dhammaantooda not to lose inaysan luminin their golden chance fursadooda dahabiga ah and fritter away inaysan iska khasaarinin their money lacagtooda. markaas gabadhi waxay tiri okay hagaag from now on hadda ka bilaabato I shall concentrate waan xoog saari doonaa practice wada sheekaysiga I shall concentrate waan xoog saari doonaa practice wada sheekaysiga